casharkan waxaan ku eegi doonaa dhaqdhaqaaq hore ee wuxuu noo qabanayo. Waxaad taaban doontaa ama aad gujin doontaa dhaqdhaqaaq hore, isla markiiba waxaad arki doontaa sanduuqa raadinta ama search box oo uu ku raadin doono fariimo idahab iyo saada isagoo ku baaraya telefon nambarka qofka aad lacagta isku dirteen. dhaqdhaqaaqyada hore halkaa waxaad ku arki dhammaan wixii dhaqdhaqaaq dhacay ee ay fariimahoodii weli ku jiraan inboxka moobilkaaga. dhaqdhaqaaqyadani waxay u kala sarayn doonaan hadba siday u kala dambeeyeen. dhaqdhaqaaqa midabka cagaaran waa lacag aad heshay ama ku soo gashay. dhaqdhaqaaqa midabkiisuna casaanka yahay waa lacag kaa baxday ama aad qof u dirtay. adeegyada kala duwan ee idahab shilin, idahab USD, zaad shilin iyo zaad USD. haddii aad moobilkaaga ku isticmaashid adeega zaad oo keliya, xagga idahabta waxba kuu soo dhigi maayo, waayo moobilkaaga inboxkiisa kuma jiraan fariimo idahaba adig iyo cid kale idin dhex maray. haddii aad moobilkaaga ku isticmaashid zaad iyo idahab labadaba wuu kuu soo wada dhigi doonaa sidaad halkan ku arkaysaan. haddii aad liiska ka weydid dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey, waxaad yeeshaa kor ilaa hoos farta u mari shaashada moobilkaaga si aad liiska ugu soo dirtid dhammaan dhaqdhaqaaqyadii dambe ee dhacay. taabo dhaqdhaqaaqa doontid, wuxuu ku geyn doonaa warbixinta dhaqdhaqaaq hore. shaashadani waxay ku tusi doontaa dhaqdhaqaaqyada dhex maray nambarkaaga iyo nambar qof kale ama meherad kale. waxaad ku arki doontaa halkan faahfaahinta akawnka sida magaca iyo nambarka qofka ama meherada, wadarta lacagtaad ka heshay iyo lacagtaad u dirtay, nooca adeega iyo tirada inta dhaqdhaqaaq ay yihiin. halkan waxaad ka dooran kartaa taariikhda dhaqdhaqaaqyada idin dhex maray adiga iyo qof kale. halkan guji sida dhaqdhaqaaqyada adiga iyo qof kale idin dhex maray ugu dari lahayd qayb ka mida qaybahan kala duwan ee aad ku qorshayn kartid dhaqaalahaaga. mid ka mida dhaqdhaqaaqyadan guji si aad u aragtid fariintii dhaqdhaqaaqan xambaarsanayd ee ku jirtay inboxka moobilkaaga. si aad u daabici kartid statementka ama dhaqdhaqaaqyadan, halkan taabo, waxaad ku dhufan doontaa OK ama allow. barnaamijka xisaabiye wuxuu xasuusta moobilkaaga ama memoriga moobilka ku kaydin doonaa file PDF. PDF-kan waxaad la wadaagi kartaa qofkaad doontid ee dani kaaga xidhanta. waxaad tegi doontaa file manager, ka dhex baari doontaa folder leeraa xisaabiye uu barnaamijku ku dhex abuuray moobilkaaga. folderka kolkaad sii furtid waxaad ka eegtaa PDF-kii ugu dambeeyey uu ku save garayay. PDF-kan waxaad la wadaagi kartaa qofkaad doontid ee dani kaaga xidhanta.